garab wanaagsan waxaan rabaa halkan inaan kusoo gudbiyo dhacdo dhex martay sheekh saa'id iyo maxamed siyaad bare allah naxariisto labada dhacdada marka intaanan guda gelin aan dib u laabto burburka soomaaliya waxaa la tilmaamaa badanaa burburkii siyaasadda soomaaliya laakiin waxaa ka mudan in la tilmaamo burburkii dhaqaalaha soomaaliya waxay sida la xuso ka mid tahay wadamada lagu fuliyey burburka dhaqaalaha si loo burbursho intaan siyaasadda la aadin baa dhaqaalaha laga burbursho adduunka maanta joogno waxaa caan ka noqday heshiisyada IMF lala galo oo dowladaha dunida saddexaad lagu qasbo soomaad arag kuwaasoo salka u dhigta ama dunida tii waagi dhoweyd Greega lala galay markay lacag la-aanta ku dhacday oo burburka dhaqaalaha uu soo wajaho oo kale in wadamadii Yurubta uu gacanta ka sugahayay intaasoo bilyan oo lacag ka dhibaatadii ku dhacday ay ka faa'iideen ilaa maantana uu la tacaalaya bixinta lacagta soomaaliya waxay ahayd waddanka ugu horreeya lagu fuliyo si loo fuliyo hay-adahan IMF to World Bank waxay bilaabeen inay la curyaamiyo wax soo saarkii soomaaliya curyaaminta wax soo saarkii soomaaliya hadday ahaan lahayd beeraha hadday ahaan lahayd warshadaha kulli waatay burbureenoo warshadii oo taagan oo shaqadeedii lacago bilaasha waddanka lasoo gashay bangiyadii layska qaadanayay sidii wax firi ah waxaasoo dhan waxa lagu curyaaminaya dhaqaalihii waddanka marka haddaba sideetameeyadii bartamaheedii lasoo dhaafay dowladduna waxay ayadu abuureysay ay weyday dagaalana dhexda ay u gashay waxay ku dhisnayd marka laga tago galbeedka wadamada carabtu waxay bilaabeen xilligii dambe oo dowladdu sii burbureysay inay macal waxa ay siin jireen soomaaliya ka gooyaan waa tii dagaalka ciraaq iyo waatuu socday kuweyt iyo taas waxay keentay in dhinac walba dowladdu ay u weydo shilin shaqaalaheedii ciidamadeedii wax walba waxa ugu weyn oo jabkana horseeday dhaqaalahaas burburka dhaqaalo waddanka hayay baa ugu weynaa soomaad arag haddaba wadamadii carabtu markay gacanta ka gooyeen dowladdii maalmahaysan dhicin macal waxaa la joojiyey dhoofintii xoolahoo kale soomaad arag baa iyadoo cudurro lagu sheegayo ama waxyaaba laga dhiganayo waxaa dhacday dowladdu intaysan dhicin siyaad barre intaasoo jeer inuu dalabyo u dirsaday wadamada sacuudiga iyo imaaraadka oo kale dalabyadiisi kulli waa daqada laga tuurahayay waa la ignoor garaynayay haddaba waxaa dhacday burburkii waddankaa yimid burburku markuu uu yimid wadamadii sida imaaraadka oo kale waxay u fidiyeen ay yidhaahdeen intuusan burburka dhicinba waxaan magangeliyan ku siinaynaa asaguna wuxuu dalabyada u gudbiyo ogaayo ay kulli diideen ama iska hortaageen soomaad arag markii uu haddaba waddanka ka baxay siyaad barre oo nairobi u tegay bay u direen dalab imaaraadku ay leeyihiin annaga noo imo magangeliyo siyaad barre wuu diiday nigeria waa isaga sidaa ku aaday haddaba waxaa dhacday markuu waddanka dhowr bilood deganaa nigeria in diyaarad iyo 3 nin oo imaaraati ah loo diray diyaaradda iyo 3 nin oo loo diray waxay wadaan warqad official ay wadaan oo sheekh saa'id uu qoray oo ay ugu geeyeen nigeria madaxweyne siyaad barre marka madaxweyne maahan markay u geeyeen warqaddii uu akhristay jawaabtuu siiyey baa waxay noqotay hadal kooban 2 eray ah wuxuu yidhi warqadna u qori mahayo oo warqaddii jawaabna u diri mahaya buu yidhi siin mahayo aqbali mahayana dalabkan uu ii soo diray marka intaa u sheegabi macal inaan warqad u qoro una qori mahayo warqad dalabkaasna aqbali maayo idinkuna iska laabta moogta nin ka mid a saddexdaa nin oo loo diray meesha nin ka mid ah oo ka sheekeynaya wuxuu yidhi markaan soo laabanay baan fariintii sheekh saa'id u nimid moogta waxaan u sheegnay siyaad barre inuu warqaddii hortayada ku furtay akhrisay markuu dhameeyeyna uu yidhi
laba halkaa eray oo ah aqbali mahayo dalabkan waxaan u qorahayana male. ninkii markaan intaa u sheegnay sheekh saa'id hadalkuu soo ceshay waxay ahayd, wuxuu yiri buu yiri waa nin raga waxaan u geysano ogyahay. soomaad arag, waa nin raga waxaan u geysanay buu ogyahay. jawaabtii sheekh saa'id ka baxshay hadalku uga yimid maxamed siyaad oo ah inuusan warradna u qorayn, intaasay noqotay. soomaad arag, uga jawaabay markay fariintu saddexdii nin ergadii uu diray ay gaarsiiyeen. nin ka mid a ergadaas oo haddaba warbixinta sida ay u dhacday soo gudbiyey baan anugu ka soo xiganayaa erayga aan leeyahay. soomaad arag, hadalka aan sheegahay. soomaad arag, marka taas waxay caddaynaysaa, dhacdada noocaasa waxay caddaynaysaa waayadan dambe adduunku waa furfurmay, wax walbana waa la ogyahay. ma ahan wixii hore loo sheegi jiro ahaa keliya. waxaa la ogaaday dagaalka ugu weyn oo dunida saddexaad lagu qaaday inay ahayd burburinta dhaqaalaha, ilaha dhaqaalaha. waddankii la arkay inuu madaxa la kacayo in cagta hoose looga istaagay. soomaaliya marka ilaa maantadan waxa loo hortaagan yahay waxa weeye soomaaliya waa waddanka keliya africa hadday nabad hesho istaagi kara, cagaheeda ku istaagi kara. weliba aqoontii iyo dhaqaalihii adduunka oo furfurmay iyo waxyaabo badan baa u sahlaya inay dib usoo kabato. goobta ay ku taal adduunkana oo ah goob meelaha adduunka laga maamulo ah baa ayaduna maxinad kale ku ah soomaaliya. soomaad arag, oo waddan la ogolaan karo inay dad madax bannaan oo socon kara oo diidi kara waxay rabaan, waxay dooran kara inay yihiin lama ogola. waa inay dadku mustacmarad ku jiraan, aada hoos fadhinaysid mogto ya. marka taasaa waxay tilmaamaysaa waxyaabo badan oo soomaalida ah. in badan baa waxay xoogga saartaa dhibaatada soomaaliya inay soomaali dhexdeed tahay, inay qabyaalada keliya tahay, inay tahay ma garanaysaa. laakiin dhibaatada soomaaliya waxa ay la xiriirtaa sida adduunka loo maamulahayo ay la xiriirtaa. soomaad arag, yaa maamulahaya adduunkan, yaa gacanta ku haynahaya, yaa dhaqaalaha. soomaad arag, deegaanka, meel walba ya. marka waddankii loo arko inuu xargaha noocaasa ama dhaqaale ahaan ama aqoon ahaan uga bixi karo waa wadamada lagu dhagahayo lugaha. soomaad arag, marka dad badan oo soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inay indhaha furaan moogta. soomaad arag, oo ay u soo jeestaan. ma ahan reer hebel iyo reer hebel ma ahan dhibaatada soomaaliya ka jirta keliya. soomaad arag, waa inaad fahantaan caqabadaha ka waaweyn kugu xeeran. soomaad arag, hanqalitaaga badahaaga ka mid ah oo hadda dowladda usoo xaydxaydanayaan. iyo soomaad arag, sida adduunka maanta cagta wixii horeo la sheegi jiro been bay ahayde waa laysku soo qaawiyo wax walba. soomaad arag, marka cashar baa ku jira hadalkan aan leeyahay. soomaad arag, ama dhacdada aan xusahayo waxaan usoo bandhigayaa dadka aan ogeyn inay ka faa'iidaystaan waxna ka bartaan. intaasoo kusoo koobaya. macasalaam.